Soomaaliya maanta waxa ay soo saartay go'aan ay ku taageerayso midnimada dalweynaha Jamhuuriyadda Shacbiga ah ee Jaynaha. Waxa ay hoosta ka xariiqday in madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee waddankaasi ay tahay lama taabtaan. Taiwan u aqoonsan tahay qayb ka mid ah Shiinaha oo ay tahay inaan lagu xadgudbin. Taiwan waa jasiirad ku taala dalka Shiinaha oo gooni u goosadoon ah. Dhulkeedu waa 36,197 iskuweer kiiloomitir. Dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 23.78 milyan. Waa gooni isu taag aan suuro gelin, dunidana aan ka helin aqoonsi. Hase yeeshee gadaal ay ka taagan yihiin wadamada galbeedka. Taiwan iyo Soomaaliya maxaa ka dhaxeeya? Taiwan waxa ay 2020 bilowday xiriir saaxiibtinimo oo Somaliland ay la samaysay. 2021 Abriil waxa ay ka furtay xarun ay ugu magacdawday safaarad. Alain Chenwalu oo ah wakiilka jasiiradan yar u magacawday waxa uu sheegay in labadoodu ay ka shaqaynayaan aqoonsi raadin xaalad adag ay u marayaan sida uu sheegay. Waa halka dawladda Soomaaliya iyo jasiiradan yar ay iska qabteen maadaama dawladdu u taagan tahay midnimada wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Soomaaliya waxa ay muujisay falka curfiga diblomaasiyadda ka baxsan ee Taiwan inuu yahay xadgudub, dawladduna aqoonsan tahay midnimada iyo wadajirka shacabka dadweynaha Shiinaha. Maarso 2022 waraysi uu bixiyay danjiraha Soomaaliya ee waddanka Shiinaha Cawaale Kulane waxa uu tilmaamay in Soomaaliya ay ka xun tahay dhaqanka Taiwan uuna khatar ku yahay nabadda Afrika. Qadiyadda Taiwan aqoonsigeeda waa khatar ku wajahan midnimada iyo wadajirka Soomaaliya. Dawladdu inay isku day walba oo dhiirigelinaya ka hortagta waa waajib ku dhisan danta qaranka ee ilaalinta midnimadeena. Taiwan rasmiyan qaanuunka dawliga ah ee dunidan waxa ay u xisaabsan tahay qayb ka mid ah dalka Shiinaha. Marka laga tago kala duwanaanta siyaasadda waa inaad aad u fahantaa muhiimadda arrinkan iyo waxa la isku hayo. Soomaaliya iyo Shiinaha labada dal waxa ay ka midaysan yihiin ilaalinta midnimada iyo wadajirka dadkooda. Waxa ayna ka soo horjeedaan gooni u goosadoonka Somaliland iyo Taiwan oo ah isbahaysi khatar ku ah jiritaankooda. Soomaaliya iyo Mareykanka, dawladda Soomaaliya iyo dawladda USA waxa ka dhaxeeya xiriir qoto dheer. Caadiyan dawlad walba waxa ay xur u tahay madax bannaanideeda. Mareykanka iyo Soomaaliya waxa ay aad ugu kala duwan yihiin qadiyada waaweyn sida aqoonsiga dawlad Israa'iil ay leedahay oo ugu muhiimsan Taiwan. Mana jirto culays ay saarto faham xaaladan. Ugu dambeyn, Soomaaliya inkastoo ay ka jirto xaalad koritaan ah waxa ay leedahay dawlad la aqoonsan yahay, la doortay oo xor u ah go'aanka gaarista masiirka ummadda iyadoo hadba ku dhisaysa danta qaranka ee ilaalintiisa ay u idman tahay.